السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسو دواد channel كسويال كميدي قodobadeen ugu weyn maanta waxa ay kala yihiin xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka hor yimid Kenya si gaar ah u beegsatay isla magacaygu waa Maslax si fadlan hadan u cusubtahay channel-kan subscribe noo saar si aad la socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo maadsan haatan ku soo dhawaad warkii faahfaahsan. wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa shalay bandhig soo rogtay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Isli oo ka tirsan magaalada caasimadda ee Nairobi wuxuuna bandhigaas ku kooban yahay xaafaddaasi oo kaliya taasoo lagu qeexay mid lagu beegsanayo Isli oo kaliya. bandhiga ay dawladda soo saartay Isli ayaa socon doona muddo 15 cisho muddadaas oo sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Kenya aan xaafaddaasi la soo gali karin lagana bixi karin. wasiirka caafimaadka dalka Kenya oo shalay galafis ku qabtay magaalada Nairobi ayaa amray in wax dhaqdhaqaaq ay soo gali karin ama ka bixi karin aysan ka jirin xaafadda Isli muddo 15 cisho. wasaaradda caafimaadka ayaa sababtay xaafaddaas ugu soo rogtay bandhiga waxay ku sheegtay inay la xiriirto faafitaanka cudurka coronavirus oo maalmihii soo dhaafay kiisas badan oo laga diiwaan galiyay xaafaddaasi iyadoo dadka loo ogol yahay inay furaan oo kaliya xilliga habeenka goobaha caafimaadka iyo dukaamada laga iibiyo raashinka. Isli ayaa shalay waxaa laga diiwaan galiyay 29 kiis oo coronavirus kadib baaritaan guri oo ka sameysay wasaaradda caafimaadka dalka Kenya. sidoo kale bandhigan 15 cisho ay soo saartay dawladda Kenya ayaa saameyn doona magaalada xeebta ku taal ee Mombasa. dhanka kale xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya isla markaasna laga soo doortay degmada Kamkuji oo ka tirsan xaafadda Isli ayaa si aad uga soo horjeestay go'aanka ay maanta dawladda Kenya bandhig ugu soo rogtay xaafadda Isli. xildhibaanka ayaa bandhigaasi ku tilmaamay mid kuwa dadka reer Isli isagoo sheegay in marka loo fiiriyo tirada kiisaska laga diiwaan galiyay gudaha Kenya ee aad uga yiriin kiisaska laga diiwaan galiyay Isli dawladana looga baahan yahay in ayagan amradan oo kale ku soo rogto goobaha laga diiwaan galiyay kiisaskaas oo kale. xildhibaan Yuusuf ayaa sheegay in Isli ay ku yeelan ganacsi aad u weyn isla markaasna uusan macquul ahayn bandhiga ay ku soo rogtay dawladda maadaama uu sheegay in kumanaan qofood ay suuqyada Isli u soo shaqo tagaan ama ka soo dukaamaystaan. gudahantaas ayaa ku soo gabagabaynayna warka xigeentaa kulmi doono waxaan kaga tagay sidaas iyo amaana Allah.